يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق عباس جانك عباس باي صاحبي دمانتي نوالي السلام سنة كدب سيسون كينا لواد اويركي تترس وقدام بيتي لو بلا ما اي حرقدي اللي حاد اد و xiisa badan اوغا صاحبي انت مد اسوغيسين سيسون كلا بعد لكن وقدام بيتي waa bilaabmay kaliya waxaan naga xigtay in dhameyn oo kaliya si aan u bilaabno marka hore waxa ka hadlaynaa in Ramadaanka 10ka u dambeeyo noo bilaabmo ma sha Allah صاحبي 10ka u dambeeyo ala ajir fiican laga qaato laga faa'iideysto tobankan ducooyin badan jirto hal duco la wadaaga ducada xiliga rabtaa samee kartaa oo tobanka u dambeys inta ku jirto xiliga rabtaa samee kartaa waana ku gaari kartaa guul fiican wax walba ku qabanaysa kaliya ilaahay tala saaro kuna duceysanay ducadu waxay leedahay Allahumma balligh lana laylatul qadr ja'alna mimman taqayyar aqdarahum ila al-afdal ilaahu waxa naga dhigtaa ku laylatul qadr ka faa'iista sidoo kale naga dhigo dadka qadartooda ilaa heer fiicnaato آمين آمين إلهي هنجا أقبله إن شاء الله إلهي هنجا ديك ضد كفى استبانك قدام بيرمضان سيدا وكلنا قدرته كديك ليلة القدر إلهي أمانتين هبينك سخالي هنا تصل صيحة حلقة دين أبلا من نوصل لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقة دين إنه بلا sida ogtiin daawadiya saddex darbi oo kala ah Maria Rose Isina ina gudahooda ku jiro aadanaha laakiin sidoo kale waxa ogaataa in dhulka hoostiisa ku jiraan aadana kala muddo 100 sano أنا حتى قرح حتى أنا أركن مدة بقول سنة آذنها أنتو تايتنسكا كبسنا هي بقول كوكل قيبي دتك حون أكل ديك لبق قيبض قيب صراحة كون ولانا عن إيه قيب دوك هوسيس كون ولانا عن وأودي ويدتك هالمر إنه وضد ديجي سافتك أنت بحيث إنه دربي جودي صديق ويدتك سياس دراد دتك كوكل قيب شقيب صدق الدربي صارك الدجايان قيب أوك هوستيس الدجايان حلقة دي إنه ما تحكوا صافن دتك أوك هوستيس الدجايان نولي هي يو يبقى تضاد إيه عفمات كذا بقول كدتك سي عاد وممكن قيبن إيه وحوس سمي دتك التاجرين تحوق أقاله هست أو مال هست أو معناها أن سبقون ولا كران وحود qaybta sare dadka faqiiriinta dhibaatada heesta oo jirkooda jiran oo macnaha wax laga qaban karin oo dhulka hoostiisa dejiyo sida daraadeed dadkaas 100 sano hoostiisa dhulka ku jira waligood qorax ma arkin xataa urur xataa way dhalaan oo wayna tarmaan dhibaatada ma ka jiro waxay dadka ma kuno caafimaad gargaar ah ma siiyo way jirtaa wayna xanuunsadaan xataa ay isdilaan cuntada xataa cunto fiican xataa ma helaan adeega ku nool yihiin sida daraadeed kaliya waxa ka badbaada dadka adeega ah oo macnaha xoog ugu baxsan meesha xoog oo cuntadoodii waxooda ku dhaxsada aadanaheena ugu awood badan Captain Levi meesha ku soo barbaaro waa meeshaas nolosha adeega oo soo maray maalin maalmaha kamid Captain Levi markuu abiis geeriyooday hooyis ayaa soo korkorisay badbaadinaysa hooyisna cudur xun ku dhacdo in qof wax uu qabo weyso oo meeshaas cid wax ku qabto meesha surviving waa ina badbaadi waa oo kaliya hadana badbaadiya cid ku qabanaysa ma leh waxaad waa in xoog ku dhaxsataa Levi hooyis markay hortiis ku geeriyooday meesha qofkiis ku jiray waxa uu maanay ninkaas markuu meesha oo arko wiilkan gargaar u baahan nolosha adeega dhulkan hoostiisa uu baxsan lahayd siinay ka bacdi markuu xirfad badan oo baro Levi in adeega ku yeelna meesha ninkaasna uu iska baxa oo ku taga Levi markuu weynaado wuxuu baranaa yar lagu magacaabo Furlan oo asiga yar kasbarada ay ka taliyaan dadkaas meeshaas inuu si u baxsanayaan cuntada u dhiciyaan waliba xataa daawooyin fiican u raadiyaan mar walba wax walba ay dhacaan dadkaas ay ku qoodiyaan asiga Levi saaxiibkiisa yarantiisa soo koray Furlan wuxuu leeyahay dadka badan oo loo diido inay meesha ka gudbaan cunto fiican hata ay helaan sidaas daraadeed wax u baahan inay toogta cunto fiican soo dhacna dadkaas uu qooday sidoo kale mid saaxiibkay Luis aad naaf u noqdo oo macnaha uu qorax daraadeed oo arkin Luis ma socon kara xataa macnaha daawada dadka qaar macnaha uu qoraxda u baahan daraadeed ee lagu wado ay waayaan oo macnaha lagu xataa naaf ay ka noqdaan sidaas daraadeed qorax u baahan mana arkaan dad qaarna waxaas kuma dhacday way ku adkaystaan noloshaas Levi wuxuu leeyahay dhimana waa sameeyeen ay hadda hawsha guda galeen ayaga mar sidaas dhaayaan gabar irid soo gargaraacaysa xoogeena ku soo galay Furlan wuxuu leeyahay cunug leeyahay aan wax kale u haysanay gabadhan wuxuu leeyahay aan cunug mihiya naagweena ay wax garata Levi wuxuu leeyahay oo ma sidaas beelo way wab loo baahan yahay baada ku dilay walwal ma qabanaysa ee hadda inta gacan ku saaray irid ka bax ka san nimanka gabadha bursanay imaanay waxay damacay in gabadha gacan saaraan Levi hamar ninka gacanta midig ugu jara wuxuu leeyahay qolkiga inta soo gashay gacanta wasaqda uu taabanay ma mar dabacar u noqo nimankan intee waxaan xilay ninka halis waay ma hay ka carray gabadhana aad u yaabay Levi wuxuu leeyahay shimbirta gacanta ku hayso inay dhimata laga yaabay la goormeesaas u haynay Furlan wuxuu leeyahay shimbir maamahan joogtanay waxay leedahay nimankaas heesteena ka soo qaado waxa raba shimbirta in xornimo si banaanka dibadda u bixiyo laakiin maas ina galada macsan laakiin ma waa ilaalinayo waxay leedahay waxaan arka aalad lagu biiba adiko isticmaalaysiin aaladaas inta ka keenteen aaladaas ina raba ina barto macna asxaab iga dhigateen ugu dartiin teamkiina ta ko magacayga aan iska baro ani magacayga waa Isab yarka kalena wuxuu leeyahay magacayga waa Furlan kaasna waa hogaamiyaheena Levi ayadana waxay leedahay waa garto walaal Levi lagu magacaabo Soomahan Levi wuxuu tagay walaal wuxuu leeyahay gabadha qadrid weyn ee siinaysa asiga ayadana markaas aad u bariya Isab wuxuu leeyahay walaal teamkiina igu dar aaladaasna ibar ani walaashaado kala iga soo qaad Levi markaas wuxuu leeyahay nadaafada si fiican u taqaanta oo macna nadaafada guriga ma ka saysa waa ina nadaafad isku diyaarsadaa guriga joogiisa wana ka sii tagaa ayadana hal mar ee yaabe Furlan wuxuu leeyahay ogolaasho amal waaye iska fahan markaasna aad u farxay Levi asoo kabtan aan ahayn wuxuu ahaa geesi oo waligiis ka talin jiray inuu dadka badbaadiyo dadka dhulka hoostiisa ku sugan dhamaantood way xushmeeyaan Captain Levi wuxuu qabanay daraadeed wallahi legend always legend oo ahaada Isabella markaas labadooda aad u dhaxgalgay waxay ka soo qaaday walaalaheeda kuweyn oo kale sidoo kale Levi adduunka wuxuu necib yahay nadaafad xumid maana laakiin labadooda waxay isku diyaariyaan nadaafad si ayagu iska taxdiraan meel u nadiifiyaan Isabella markaas xarasiina oo dhimgeer ee baranaysa maana laakiin si mar
walba train ugu barato maaha laakiin way baranay waana ku fiicnaanay waxayna ku guuleysanayaan shimbirta inay xoreeyaan waxay arkayaan meel yaris oo kor oo banaan oo meeshaas yaris iftiin yar ka soo baxay meeshaas shimbirta ku fasaxayaan wayna xoreynayaan markaas kadib ayagoo sii laabteen oo guriga gal rabo markaas in uu maana xuliya shaqaani haya shaqaas muu baahmay inay qabto adiga dan inay tahay Levi halkan ka badhigaysa xuliya waxaas ka marmay naga horta xuliya saasa dhahay miya adoo og dad qaar in niga xanuunsan lugooda naafo u yahay markaas kadib xuliya Levi waxa ka wada hadalkaaga jil xuliya shaqada adeeg dan ku taa dad badan ku daaweyn kartaa sidoo kale dadka naafaha ta banaanka loo qaada si loo soo daaweeyo dantaada way isooraa markaasna ayaga way soo raacay markii aada waxay kulmayeen nin inkaas oo shakalkiis ka muuqato inuu malkiiliyahay oo dhaqaalaha xuliya waa maqal wax hoos ku sugnaaday wax uu halista badan adiga inay tihiin ogan gisre sidaas daraadii Iran yahay waxaan sheegay cadaarti cunto fiican meel digtiin aragtiin biyo fiican oo wax walba gargaar ah helaysiin oo xataa waliba banaanka arkay fursadaha helaysiin habtii niga xanuunsan oo nilu daaweena oo naafo lugooda ka ah intaas aragtii shaqadan qabta ifa markaas xuliya shaqada ay ka hadlayso waa maxay ninkan xuliya shaqada sheegay waa dil aad geysanaysiin waxaa dilaysiin in lagu magacaabo Erwin Smith ninkaas soo dilaysiin oo soo hubsanaysiin maanta weeyna waxay xidhiin tadiga kooxda saameynta ma ka hadloosaa xuliya ninkaas soo dilaysiin sababta soo dilaysiin ma weydiinaysiin kaliya waxaan balan qaado waxa rabtiin nisina asxaabtiin waa nila daaweena sidoo kale waxay noqonaysaa dadka qaybta sardigan lacagna waa helaysan kaliya waxaan naga xigta shaqada ina ogolaa kaasan Levi Foreign wuxuu ku leeyahay saaxib shaqada ina qaban waa muhiim haddaad ku caawin karto dadkan oo dhan mustaqbalkiina oo isku bedelay qaybta sarna adigin hadda halin aan ku helin adin waxaan aan ku helin waa muhiim ina qabno Levi markaas oo ogolaaha wuxuu leeyahay Erwin Smith ana gacantiisa ku dilayo oo Levi saaxibka mustaqbalka ma gacantaada ku dil rabtaan markaas way israacayaan waxay galaan shaqada eediga oo maalooda ay galaan wax ku dhacaan ayagoo socdo meel dheer waxay ka arkayaan koox soo socoto ayaga dabacsan inay qabtaan isbal waxay leedahay kuwana kuwii askartiga kuma aha mar walba saan ugu baxsanahay caadi waaye Levi wuxuu ku leeyahay wax iska dhaafay horta le focus ka saar Levi oo ODM giirka ugu duulay god damn wali kooxda saameynta mal aan saasna waa loo yaqaan ka war Levi nimanka jaakad way ka soo dabgala asiga intuu dhibadan in uu saas ku dhaxbaxo gadaashood aada faana markaas wuxuu leeyahay nimankaas ODM giirka ugu duulay ma aha niman caadi oo askara Levi wuxuu leeyahay nimankan askar caadi ma aha qaabkooda iyo calaamadooda isugu dhaqaaqayaan calaamada ugu dhigan waxay u muuqataa calaamada xornimada oo cadeynaysa kooxda saameynta nimanka waa kooxda saameynta Foreign markaas xuliya nimanka Tetris ka dagaalamay wali waa nimankan ma ODM ka san ugu duulay caadi ahayn Levi wuxuu ku leeyahay adiga si kala bax ana badan nimanka ana mashquulinaya ay soo dabgalayaan Levi markaas xuliya awoodooda ana tijaabinaya tuso waxa Tetris ka ugu daalantiin kooxda saameynta Levi asoo xirfadiis adeegsanaya ODM giir ku duula ugu baxsanaya hamar biiga ka hor imaanaya oo kooxda saameynta ka darsan iska qabo asoo sadaya hamar waxa ka soo horbaxa taliyaha kooxda saameynta Erwin Smith oo ka qabanayo intuu Erwin la dagaalamayo intuu Levi iska qabto xuliya gadaashada fiiri markuu geeskiis midig fiirin wuxuu arkay Isabel iyo Foreign oo gacanta lagu dhigay markaasna midida gacanta ku hay hore ku tuuraa Erwin wuxuu leeyahay caadimatiidii go'aankaada hore ka qaadan xilliga lagu talgalay markaasna Levi gacanta lagu dhigaa ayaga dhan waa la ka tiinadeeha tadii Erwin su'aal weydiiyay wuxuu leeyahay inta ka keentay ODM giirka seen u barateen waa ka helsa ugu duulaysan u isticmaalaysin laakiin inta ku barateen intana ka keentay wuxuu leeyahay ada leaderkooda ah soo maahan wax walba su'aal ku weydiiyay iga jawaab ayagana way aamusay way ugu jawaab weeyay markaas Miguel Levi madaxiisa soo qabto dhulka gelina Miguel waa hadda nimanka uu sareeyo kooxda saameynta ka ayaga waxay leeyihiin George Foreign markaas wuxuu leeyahay ninka ODM giirka meelahan kamid leh ka soo xadaan ku isticmaalna oo kaliya asbarna qofna barta malahan tali Erwin wuxuu leeyahay yaa xasan ma ka dhigaysanay qofna ma barin geedan dhideel u bari kartid waxaas ka dhigaysanay markaas waxay leeyihiin duruufta ku baran adiga duruufta wadiga maxaa ka taqaantaa dhibaatada soo arkin markaasna Erwin Levi uu mado urugmado wuxuu leeyahay an magacayga waxa loo yaqaan Erwin Smith waxa ah taliyaha kooxda saameynta hadda toos uma yihi laakiin waa u sharaxanahay laakiin magacaaga ii sheeg magacayga waa Levi Ackerman wuxuu leeyahay Levi soo maahan Levi hal su'aal ku weydiiyo hadda kooxda saameynta igu soo biirta ka waran tiimkayga ka dum noqotay adiga ODM giirka soo isticmaalaysid soo duulaysid waa ka helay wax yar oo barashada u baahan tahay si baqas aan adiga ay uu soo biir Levi awoodada xirfadaha daawo adeegsatay aadanaha ina ku difaacda ka waran Levi wuxuu leeyahay daandiida ka waran wuxuu leeyahay daandiida dhib ma lahan askarta anigu wareejina xabsi nirgelina waxa dambiye soo geysteen in loo ciqaabo isda anigu soo biirta waxa sana ka hortagay dambiyada geysta in dusha ana saarnaay xur aad tahay waxa rabta sameeyada xur ah Levi markaas kartida ninka uu hadla inta leeyahay wuxuu leeyahay dhib ma lahan anigu biira kooxda saameynta yo Levi wuu aansaday ugu dambeeyay kooxda saameynta ku biir team Levi markuu go'aansaday inuu ku biiro kooxda saameynta Erwin Smith ma fursad u helay inuu dilo mase hadafka kooxda saameynta laga leeyahay in lagu biiro mo sii wada waxay u noqon doontaa banaanka marka u baxan see u arki doonaan jawigaas qoraxdaas waxa soo dhan waxa ku arki doonaa xalqadiina soo socota insha Allah daawada hada xalqadiina ka hesho si sunkeena labaad oo bilaabmay like subscribe ka dhigayna si dhiirigelin oo noqoto raasaan like tel ilooben like meel sar halgaas si saaxiibayaal xalqadiina xigta si degdeg ugu soo deg waan maasantiin magacaygu Cabbaas Injarka Cabbaas Bay nabadgeliyo xalqadiina soo socota Levi oo kooxda saameynta awoodiisa la yaabayaan iyo argagixii ugu weyn ee Levi qabsanayo xalqadiina waxay noqon doontaa xalqad naxdin badan